الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan marti sharafta halkan isugu timi oo ka soo qayb gashay xafladan qiimaha badan oo inuu isugu nimi garaad xuseen siciid xasan, garaadka beesha macaawiye, garaadka macaawiye ee beesha cabdi koombe jambeel. waxaan marka hore u mahad celinaynaa ciddii soo abaabushay xafladan quruxda badan, isimada iyo waxgaradka ka soo qayb galay, siyaasiyiinta, madaxda gobolka, dhammaan dadka halkan isugu yimi, dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullah. salaan kadib walaalayaal, waxaan filayaa xafladan wixii munaasibka kelmaddii ku ahayd oo dhinaca isimada waxaa yidhi isimadii halkan ka hadlay kelmaddii wacdiga iyo diiniga iyo waxaa yidhi sheekh daahir oo cabdi muftigeenna. waxaan isleeyahay halkan hadda wax ka bannaan oon halkan ka idhaahda hadda ma jiro. keliya waxaa ii bannaan inaan garaadka u duceeyo. garaadka sida looga sheekeeyey ama taariikhdiisa halkan looga hadlay waynu wada naqaan, oo dadka reer puntland ama soomaalida oo dhan way taqaan, oo nin lagu yaqaan diin iyo alla ka cabsi iyo inuu dacwada fidiyo ayaynu ku naqaan. jamaacada tabliiqu runtii wax badanna way qabteen. suldaan garaasi hadda halkan uuba ka caddeeyey inuu isagu ka mid ahaa, oo anagu runtii marar isagoo khuruujiga u baxa waan maqli jirnay. laakiin waxaan filayaa jamaacadaasi runtii khayr badan bay ka shaqeeyeen. dadka ama inta ku soo biidhay oo dacwada iyo khayrka oo iyagu sababta u ahaayeen way tiro badan yihiin. waxaan haddaan ka xasuustaa nin la dhaho yuusuf uurxaad baa la yidhaahdaa, oo qardho jooga oo jamaacadan ka mid ah, ayaa wuxuu tegey hargeysa inta jamaacada tabliiqa raacay. markuu ku soo biiray waxay yidhaahdeen bayaankaa sheegaysaa, istaag oo ka hadal masaajidka. yuusuf nin diin badan yaqaan ma ahayn, laakiin nin runtii niyad wanaagsan iyo khayrka inuu ka qayb qaato ilaahay uu gartay uu ahaa. dadkiiba hor istaagay wuxuu yidhi, war niman yahow ilaahayn ka baqa. haddii uu waaniyey kelmaddii way ka soo xidhantay oo wuxuu sheegu garan waayey. wuxuu yidhi, war waxaan sheego garan maayo, ilaahu ka caliyow warna soo raaco, niman yahow tabliiqa soo raaca oo jamacada ku soo biira. marka nin raggii meesha fadhiyay waxaa la yidhi, war ninkaa reer bariga ayaynaan ka harin. kelmadda luuqadiisii baa la gartay. jamaacadii masaajidka ku tukatay oo dhammi hal mar bay wada raaceen oo waxay ku biireen. runtii waxaan isleeyahay jamaacadanu jamaaco khayr badan weeye. sheekh xuseenna khayr badan baynu ku ognahay. tan iyo intii burburka kolley intaan uu garanayo isagoo ama khuruuj u baxaya ama diinta fidinaya ayaan arki jiray. runtii beeshu way ku ammaanan tahay, oo aad baan ugu ammaanaynaa xulidda ay soo xuleen garaad xuseen oo shiikheeniya, beesha macaawiye oo cabdi koombe. runtii kolley dhaqanka marka la fiiriyo ama ummaddan reer puntland wuxuu u ahaa tiirka ugu weyn. waxaa hadda la ogaaday soomaalidoo dhan inuu u yahay wax weyn oo tiirka ugu muhiimsan, oo muslim iyo gaalaba hadda sidaa way isla qarsan tahay. wuxuuna ka soo bilowday xilligii nebigeenna salawaatullaahi calayhi wasalaam, markii dagaalkii qaswatul axsaab oo yuhuuddii reer binu qurayda lagu duulayay. waxaa xukumayey oo uu u dhiibay xukunkooda sidoo hadda sheekh daahir u sheegayey سعد بن عبادة
saxaabigii weynaa markuu u yimi wuxuu ku yidhi qumuu sayidakum u istaaga sayidkiina yacni xilligaa ayay ka soo bilaabatay ilaa iyo haddana waxa weeye ummadda soomaaliyeed kolley wax badan bay ku soo meel madhay weliba khaasatan reer puntland waxaan isleeyahay kaalintaa insha allahu ciddii ku soo biidha oo culimo ah ama waxgarad kaletaba ah runtii aad baan u soo dhawaynaynaa anigu kolley kelmadda aan haddaan halkan aan hadal tiro un maahay hadal ii harsanaa ma jiro waxaan leeyahay keliya sheekh xuseen garaad xuseen ilaahay ha ka dhigo garaad khayr oo ummadda khayr ku soo kordhiya oo mujtamaca dhex u noqda oo cadaalad iyo khayr beesha uu ka dhashay iyo ummadda reer puntland iyo soomaaliba ku soo kordhiya ilaahayna xilkiisa u fududayo ummadda soomaaliyeedna waxaanu sheegaynaa iyo khaasatan beelaha reer puntland garaadku inuu yahay garaad khayr iyo maslaxad iyo diin aynu ku ognahay intaasaan kusoo gabagabaynayaa wa aakhiru dacwaana in alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin